بسم الله الرحمن الرحيم waxaa weli socda barnaamijka gurmadka abaaraha oo aynu ka wadnay Jubbaland maanta waa 5 bisha September 2022 qaybtii labaad oo deegaanka Luglow ee goobeen ka tirsan ayaan maanta sidoo kale kun qoys guddoonsiinayna waxaana loogu talagalay walaalaheen abaartu ay saameysay oo ka soo hayaamay deegaano kala duwan iyagoo rajaynaya inay nolol iyo isbedel ay ka helaan meelaha yimaadeen kun qoys ayaa insha Allah taala maanta la guddoonsiinaya raashinkan oo isugu jira raashin kala duwan 70 kilogram sidii warbixinada hore aan ugu sheegnayba ayay maanta walaalaheen guddoomayaan mashruucan haddii alla idmana weli waa uu sii socon doonaa oo ilaa 10,000 oo qoys ayaa Jubbaland loogu qorsheeyay waxa hadda aynu qaybinay waa qaybta labaad maanta oo kuna oo ilaa 3,000 oo qoys ay sidaas ku guddoomeen waxaana ka shaqayn doonaa haddii alla idmo iyadoo ay tadaamun kaashanayso gobollo kala duwan oo ka tirsan isteediyada dowladda federaalka waana phase-ka labaad phase-kan oo waxa ka horeeyay phase sidoo kale aynu bishii March soo bilowday oo June dhamaaday phase-kan oo phase-ka labaad waxa iyadana sidoo kale barbar socota biyo dhaamin loo sameyn doono dadka iyagu ku soo barakacayaasha ama xeryaha barakacayaasha ay ku yaala magaalooyinka waaweyn waxaan rajaynayaa in Ilaahay u barakeeyo inta la soo baxday tabarucaadkaasna oo sidoo kale Ilaahay ka aqbalo soo barakacnay homboy waxaana la siiyay raashin baasto bariis bur sokor saliid timir aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wixii nala siiyay aan ku qanacsan